قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan laba qodob aan xusuusiyo qodob oo kala waxaan ugu soo wajahan dhawaan sanadka cusub inta badan waxaa jira dad fara badan oo ku howlan dabaaldega sanadka cusub kuwa oo isu diyaarinaya sidii hoteelada iyo meelaha ay u tagi lahaayeen qaarkood waxay isu diyaarinayaan inay heeso ka qaadaan marka arintaas shariicadan iyo diinta islaamka markii lagu fiiriyaa maxay ka qabtaa sideedaba in aan muslimiinta waxay leeyihiin oo kaliya laba ciidood ciid la ciidul fitri iyo ciidul adha ma jirto ciid saddexaad oo in la isugu yimaado ama loo dabaaldegaa shariicadeena ee fasaxada ma jirto sida awgeed inaan dhaqanka gaalada raacno aan ku dayano oo aan dhahna habeenkii waa sanadka cusub oo xafladaan dhiganaynaa oo sidii ciid oo kala laga dhigaa dhaqan suuban ma shariicada islaamka diinta islaamka ka hor imaanaysa arinta ayada marka bulshada muslimiinta waxaan kula talinayaa inay arinta ayada aad loogu fuljignaado qodobka labaad aan raba inaan bulshada Soomaaliyeed raba inaan kala la wuxuu yahay dadka qaar waxay isku khaldaan ama ay ku hadaaqaan sanadka cusub ama sanooyinka marka laga hadlayo waxa jira laba sano ayaa jirto sanadna waxa la yiraahdaa taariikhda hijriga taariikhna waxa la yiraahdaa taariikh miilaadi marka dadka qaar waxay yiraahdaan taariikhda gaalada sanadkan dhawaan noo dhalan doona 2019 dadka qaar waxay leeyihiin waa sanadkii gaalada sideedaba sanad gaala sanad lahayd ma jiro sanadka hijriga wuxuu ka soo bilowday nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ka tagay magaalada Makka Madiina uu tagay sanadkaas waxa la waa hijri sanadkan hadda dhawaan aan gaarayno 2019 kana waa miilaadi wuxuu ka soo bilowdaa dhalashadii nabi Ciise alayhi salaam waxay ku kala duwan yihiin oo kaliya sanadka hijriga ah waxa lagu tiriyaa dayax ayaa lagu tiriyaa markay bisha dhalato bisha lagu xisaabiyaa halka sanadka kale miilaadiga ahna waxa lagu tiriyaa maalinta isaga maalintii la xisaabiyaa sida darta habeen iyo maalin ilaahay aska leh wax sanad gaalaha ma jirtay gaalaha naga siinin bismillaah dhalinyarada waxaan kula talin lahaa difaaca diinta iyo dhaqanka suuban dhalinyaradu waxaan leeyahay difaaca diinta darajo lagu helaa dabaraaca gaalada dulinimo baa laga dhaxlaa anigu ma qabo in aan had iyo jeer taageero u noqono dhaqanka xun ee gaalada waxaan dhihi lahaa taageeraha u noqon gaalada ku dadaal diintaada yaa mudan in lagu daydo anigu waxaan dhihi lahaa dulinimo daayo ku dayo duulka suuban dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inay dhaqankooda toosiyaan waxaana dhihi lahaa toosiya dhaqankiiyo tusaale u dhaqaya saagiin ruux walba oo daneynaya raali ahaanshaha alle waxaa ku odhan lahaa rabbigiina ka yaawo rasuulkiina raaco oo ka hara raadraaca gaalada dhalinta ku hoolan dabaaldega sanadka cusub waxaan weydiin lahaa daayarta aan la taliye dabaaldega iyo dareenka muusikada manoodan baa